saaka waxay ahayd aroor ka duwan sanado badan oo deegaanku soo maray waxa waagu saaka shacabka ku dhaqan xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga ay ku waabaristeen diyaar garow ballaaran oo ay ku soo dhaweynayaan isbeddelka cusub ee dimuqraadiyadda sinaanta midnimada wax wada qabsashada deegaanka aroor raba boqolaal kun oo shacabka ku dhaqan xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda oo isugu soo baxay garoonka caalamiga ee Galaadwiilwaal ee diyaaradaha oo isugu jiray culimo diinka hooyooyinka dhalinyarada waxgaradka iyo aqoon-yahanka deegaanka ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay hogaaminta cusub ee xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo ay ugu horeeyaan madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide oo ay socdaalkan ku weelinayeen dadka u horeeya siyaasiyiin caanka geeyga Soomaalidu degto oo kamid ahaa mudane Faarax Macallin Dawaara oo kamid ah siyaasiyiinta dalka Kenya iyo xubno dadka u walaalaha xuquuqul insaanka deegaanka ugu horeyn soo dhaweyntaasi markii ay soo gaareen xarunta diyaaradaha ee Galaadwiilwaal ee magaalada Jigjiga waxa si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay kooxda Bambeyda oo ay salaan ka qaateen intaas kadib ayaa kooxda fanka iyo suugaantu ay halkaas iyaguna ku soo dhaweeyay iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay soo dhaweyntan ay halkaas ku salaamayeen isla mar ahaantaana nasasho kooban ay ku qaateen qolka marti sharafta ee garoonka caalamiga ah ee Galaadwiilwaal iyagoo halkaas kula hadlay warbaahinta deegaanka iyo tan dalkaba ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa waxa uu halkaas kula hadlay warbaahinta isagoo sheegay in xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya uu 20 maalmood la soo dhaafay dawladda ballaaran ugu jiray sidii guud ahaanba uu xisbigu u sameyn lahaa isbeddel dhanka siyaasadda dimuqraadiyadda afurfurnaanta iyo geedi socodka guud ahaan ee siyaasadda xisbiga iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka uu deegaanku soo maray iyo waliba dhacdadii ka dhacday 4 August qayb ka mid ah deegaanka Soomaalida oo dhaawacday sumcadda shacabka deegaanka Soomaalida marka ugu horeyso shacabka magaalada Jigjiga aad u salaamay sida fiican soo dhaweeyeen dhammaan mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer deegaan iyo dhammaan xubnaha hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida madaxweynaha cusub Maxamed Cumar iyaan ku nimid iyo hogaamin kale oo federaalka oo la socdaan runaantii dhawaan dhibaato ballaaran baa ka dhacday deegaankeena oo barakac iyo dil iyo wax badan ay ka dhaceen kadib xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya qiimeyn ballaaran baan galay Addis Ababa qiimeynta golaha dhexe kadibna qiimeynta hogaaminta iyo dhammaan shirweynaha guud aqoon-yahanka iyo odayaasha iyo dhammaan hogaaminta sare aan ra'iisul wasaaraha kula shirnay shirarkaas waxa ka soo baxay go'aano muhiim ah in dib u dhis deegaankeena ku sameeyno dhibaatooyinka kale aan ka gudubno midnimo Soomaaliyeed aan abuurno dhibaatooyinka khaladaadka deegaanka jiri jiray iyo kuwa dhawaanahan ka dhacay sidii loo sixi lahaa jihada siyaasadeed lagu sixi lahaa dhammaan isla qaadanay kadibna shirar ballaaran baan qabsan doonaa deegaanka oo dhan oo shacabka wacyigelin ku sameeyno dhibaatooyinkii sidii looga gudbi lahaa in nidaam dimuqraadiyadeed maamul suuban adeeg bulsho midnimo Soomaaliyeed iyo cadaalad sidaan oo abuuri lahayn xisbigana in tayadiisa u dhisi lahaa hogaamin aqoon-yahan iyo karti leh iyo khibrad leh inaan qaab dhismeedka dawladda soo galno kabinetka gobolada aan dhisno degmooyinka aan dib u dhis ku sameeyno marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha garab galaan xisbiga sixitaankan ballaaran oo deegaanka ka sameeyay waa maasanidin intaas kadib ayaa isaguna waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar isagoo wareyntii sheegay in aad ugu faraxsan yahay in muddo 12 sano kadib uu deegaankiisa dib ugu soo laabto isla markaana ay indhihiisu qabtaan shacabkiisii iyo dhulkiisii isagoo nabad qaban oo yimiday aad iyo aad ugu faraxsanahay in ku soo laabto dalkaygii 12 sano kadib intii aan ka tagay waxaan hubaa wax badan isbedeleen laakiin haddana aad ugu faraxsanahay arko dad far badan oo aan garanayo oo ehel iyo qaraabo iyo shacabkii kale ee deegaanka waxaan sida uu sheegay gudoomiyaha xisbigu waa la socotaa barnaamijyada isbedel la rabo in laga sameeyo deegaanka kuwaas sidaan u sii xoojin lahayn dadku nagala shaqeeyaan shacabku kaalintooda ka qaataan cid hadda maaragtay la guuleysatay cid laga guuleysatay toona ma jiraan waxaa meesha loo yimid inaan wixii naga xumaaday hagaajisano oo danta ummadda ka shaqeyno cadaalad sinaan horumar dimuqraadiyad iyo in maaragtay shacabkeenu akhlaaqiyadka diinta iyo dhaqanka iyo wax walba naga xumaaday aan soo hagaajisano yaa u soconaa waxaan rajeynayaa shacabku taa lagu taageeri doonaa haddii la yiraahdo
madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa kale uu sheegay isla mar ahaantaana uu halkaasi kala hadlay guud ahaanba shacabka deegaanka Soomaalida meel walba oo ay joogaan inay muujiyaan deganaanshiyo isla mar ahaantaana ay qayb ka noqdaan dadaalada lagu horumarinayo guud ahaanba shacabka deegaanka. marka waxaan farayaa shacabka deegaanka Soomaaliyeed in wax loo qaxayo wax loo carraa meesha uu oolin waxaan u soconaa in maartay sharcigu sareeyo sharciga in la iscafiyo in la wada noolaado in maartay waxyaalihii khilaafaadka jira si nabadgelyo lagu xalliyo arinta kale ee ka dhacday magaalada Jigjiga maalintii dhaweeyay ee dadka nala nool lagu dhibaateeyay runtii aad baan uga xunahay ma garanaysaa waa mid maartay u baahan maartay in iyadoo la xalliyo arrin foolxuma in dadku nool oo maartay asku maartay daltihiin maadaama luqadooda ka duwantay dadka aad leyso oo dhibaatayso waa arrin maartay aad u xun manaha ficil ku kicin shacabka deegaanka Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dhibaatooyinka soo jireenka ah ee shacabka laftigooda soo gaaray 27 sano u dambeysay iyo intii ka horeysay marka waxaan shacabka ugu baaqayaan istijiyaan noloshooda caadiga dib ugu soo laabtaan waxaan bala qaadanaynaa in muddo kooban gudahood hay'adaha dawladda dhamaantooda dhamaystiro si fiican loo wada shaqeeyo. intaas kadib ayaa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay siyaasiga caanka ah ee reer Kenya Faarax Macalin Dawaare isagoo sheegay in deegaanka Soomaalidu uu yahay mid muhiim u ah guud ahaan dalkan Itoobiya isla mar ahaantaana uu sidoo kale door weyn ka ciyaarayo ahmiyadda isku xirka dhanka dhaqaalaha ganacsiga iyo midnimada wax wada qabsi ee wadamada Geeska Afrika sida Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti isla mar ahaantaana uu sheegay in maatinkiisan koobaad uu yahay mid aad ugu faraxsan yahay xilli isbedel siyaasadeed oo dhanka dimuqraadiyadda ay ka bilaamayso deegaanka Soomaalida inuu yimaado. hadda ugu horeysa Jigjiga imaado waana ku faraxsanahay Jigjiga oo wax badan iska bedelay oo shacabkeedii maartay xurriyad iyo nolol maartay lagu baaqay insha Allah oo isleenahay isbedel weyn oo dhici doono oo isbedelkan uu saameyn doono maxay gobolka kilalka shanaad oo Soomaalida ku nooshay Somali State kali aanan ahayn oo ay saameyn doonto Itoobiya inteeda kale Jamhuuriyadda Soomaaliya, Kenya, Djibouti, Soomaaliya dhammaan alla meesha ku nooshay waayo waxa weeyaan annaga iyo idinka noloshiina way isku xiran tahay nolosha annaga aniga meesha laga soo doortay hadda 360,000 oo qaxooti ayaa joogta qaxootiga meesha u badan yahay ka imaadeen gobolkan bay ka imaadeen inta kalena Jamhuuriyadda Soomaaliya bay ka imaadeen marka inay Soomaaliya nabad noqoto maxay ahayd Somali State oo inta ay nabad noqoto oo dadkina ay soo noqdaan annagana dad isku furan oo wada dhashay oo maartay mustari iyo exchange cultural exchanges iyo thaqaafi wax kasta isku imaanayo laakiin meel kasta ay nolol ka jirto ayaa dan ugu jirta haddii meel ay qarxado halawdo meel kasta kale dhanba waxa weeyaan dhibku gaaraya marka anigoo hadda Kenyan oo laakiin qowmiyadda Soomaalida ka imaaday walaalkiina waxaan ku faraxsanahay maanta wajiga inta ay leedahay iyo nasriga iyo wanaaga u soo socdo ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Somali State halka oo saameyn ay ku yeelan doonto Soomaalida Djibouti, Soomaalida Soomaaliya, Soomaalida Kenya kulli saameyn ku yeelan doonto oo isbedel nolosha ay imaan doonto nabadgelyana la heli doono saas ayaan maartay aad ugu faraxsanahay maanta ka qayb. intaas kadib ayaa wafdigani ballaaran ee isugu jiray mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya xubnaha u ololeeya xuquuqul insaanka ee deegaanka Soomaalida iyo siyaasiyiinta caanka ahi waxaa loo soo galbiyay dhanka xarunta madaxtooyada halkaasi oo ay ku soo dheelmadeen